السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كسو دوادا muuqaalkeena maanta waxaana idinka dabageyn doonaa akhbaaraadkii ugu dambeeyay taxanaha gundhigii Cusmaan ka soo baxay ee waxa ay markaasi ilaa hadda aynu u laanahay goosgooskii koowaad ee laga soo bandhigi lahaa qaybta 192 ee taxanaha gundhigii Cusmaan fadlaadii janalka cusub taa subscribe noo saar hore hadii nala joogto muuqaalkeena la gareed daawada aad iyo aad ayaadna u maasantahay inteenan guda galin muuqaalka ka horana ku saliya xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadeerna si toos ah aynu u guda galna markaa muuqaalkeena maanta waxaan la socon markaasi xalqadii hadda la soo dhaafay waxyaabo badan ku daawan waxyaabo aan ka hadlin waxa kamid ah markaasi waan ilaaway bixitaankii orahan markaasi Cusmaan kadib markii uu ku yiraahday qalcada Karaja bish ayaan kugu wareejiyay waana ina aada adig iyo xaaskaaga halkaas ayaana hadda kadib ku sugnaanaysaan oo dignaanaysaan taasoo ka dhigan markaasi imtixaanaha uu isaga baxninkii orahan lagu magacaabay maadaama aabish markaas arkeenin taasina looga dhigay markaasi in orahan sidaas uga baxay filimka doorkiisana markaasi qofka lagu soo bedeli doono dhanka kale xitaa waxyaaban ka tagno waxa kamid ah markaasi ninkii Xasan Alab ahaana inuu dib ugu soo laabtay Cusmaan isla marhaantaasna uu ku yiri indhaha ayaa markaasi duulay ku idmaa coofiga fuulayo xaqa ayaan arki waayay markaas meel kale ku dhacay markii iga raali noqo turgud ayaan Cusmaan u keenay maadaama turgud iyo dagaalku uu ku caawiyay ninkani sidaas darteedna Cusmaan waa iska cafiyay ninkan markale ayuuna qabiilkiisa ku soo dhaweeyay sidaa darteeda xalqada soo socoto waxa laga bedeli doonaa taxanaha wax badan isla marhaantaasna waxa sheegnay markaasi in laga yaab xitaa in ay dhacaan markaasi waqti bedelid oo intaas oo sano kadibna la dhaho dadkii isbeddelay inuu aragno sidii taxanaha markaasi aanu ku daawanay seasonkii saddexaad xalqada 9aad ba hal mar kaliya aynu ka warhelno markaasi Cusmaan oo ilmihiisa xogaa koreen isla marhaantaasina dadkii dhamma isbeddeleen aynu ka warhelna sida ula socotiinba marka sidaas darteeda isla xalqada soo socotana sidaas oo kale ayaa la rajeynayaa markaasi inay dhici doonto oo waqtiga la bedeli doono rag culusna markaasi lagu soo dari doono doorka orhaanna sidaas uu ku baxay laakiin orhaan cusub uu inoo iman doono sida ayaanu rajeynaynaa waana waxa loo badinaya markaasi sababka u ah in xalqada hadda soo socota markaasi la waayo maadaama ay u baahan tahay markaasi waxaasi in juhdi la geliyo iska sameey ama fudeed ee markaasi ahayn iyadoona markaasi ilaa hadda aynaan haynin wax cadeynaya markaasi xalqadaani in ay baaqan doonto ilaa hadda aanan la soo shaacinin jaanisna wali uu jira markaasi muddo 4 maalmood maadaama ay ka dhimantahay xalqada soo bixitaankeeda waxaynu rajeynaynaa markaasi inaysan naga baaqan doonin sidoo kale tan aynu daawan doono markaasi waxyaabaha boosdag uu soo qurxin doono isla marhaantaasina xalqada soo socota loo daawan doono ee quruxda badan iyadoona markaasi filimka wax badan laga bedeli doono